بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعن أوناكسن داوديال كنا سو دبادة وركا هبين تلفزيونka caalamiga ee raayis xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. qodobada ugu door koreen warkeena habeenimo waxaa ka mid noqon doona shirka madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedka dalka oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. ciidamada militariga Soomaaliland oo la wareegay degmada Boocame ee gobolka Sool. golaha wadatashiga qaran oo cambaariyay qaraxii isgoyska soo bixi magaalada Muqdisho. qodobadaas iyo qodobo kale ayaa warkeena habeen ku daawan doontaan imikana ku soo dhawaada asagiyo faahfaahsan. وهاجي داوديال imikana ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan. shirka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maalmaha ka socday caasimada Soomaaliya waxaana laga soo saaray qodobo dhowr ah. جمهورية فدرالك سوماليا دكتور حسن شيخ محمود أيا قدومية شركة سدحات قولها وضتشيغ قرن كاس أولو قبطي مقالة مقدشو انتي ودي حيسي تدوبي لباتنك إلى كوي صدنك أكتوبر سنة لبادكم لبي لباتنك شركة وحكسو قيب قلي رئيس الوزراء حكومة فدرالك سوماليا مداني حمزة عبد بري رئيس الوزراء كحيجانك حكومة فدرالك سوماليا مداني سارة حمد جامع مدحوينها بونتلاند مداني سعيد عبد الله الديني مدحوينها جوبلاند مداني أحمد محمد إسلان مدحوينها كونفور قلبيت مداني عبد العزيز حسن محمد لفتقرين مدحوينها قلمدوك مداني أحمد عبد كاري قورقور مدحوينها هيرشابيلة مداني علي قودلاوي حسين هي قدوميها قبل كبنادر شيخ حسين يوسف جمعالي مدالي وقهرين قراها وضتشي قران وحو تحسيق الدرايا شعبك الصوماليات اهلada iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii ku shahiiday weeraradii argagixiso guud ahaan dalka gaar ahaan weerarkii 29 Oktoobar ee gaarka Zoope ee magaalada Muqdisho. sidoo kale goluhu wuxuu Ilaahay uga bariyaa inta dhaawacantay inuu u boogadhayo inta ku hanti beeshayna bedel khayr qaba alle siiyo. goluhu wuxuu cambaareynaya gumaadka qawaariishtu ku hayso ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah. bogaadin golaha wadatashiga qaran waxa uu bogaadinaya guulaha isdaba joogga ay gaareen ciidanka qalabka sida kaashanaya kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka laga ciribtirayo qawaariijta. waxa uu amaanay gargaarka bini'aadanimo iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ay wado xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo beesha caalamka. goluhu wuxuu bogaadinaya dhaqanka deganaanshiyaha siyaasadeed wada noolaanshiyo dimuqraadiyadda ay Soomaaliland ku soo caanamaashay wuxuuna ugu baaqayaa madaxda iyo shacabka Soomaaliland inay ilaashadaan xasiloonida iyo nabadda. waxa uu bogaadinaya ganacsiyada Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland hirgeliya dekada Garaacad oo noqotay isku tashi u dayasho mudan. wuxuu bogaadinaya dadaalka dawladda Puntland ugu jirto horumarinta hanaanka dimuqraadiyiinta iyo qabashada doorashooyinka qof iyo cod ah. wuxuu bogaadinaya dadaalada dawladda federaalka Soomaaliya ay ugu jirto xoojinta xiriirka kala dhaxeeya saaxiibada caalamka. qodobada shirka ka soo baxay iyadoo la tixraacay qodobadii ka soo baxay warmurtiyeedii shirarkii golaha wadatashiga qaran ee 12 Juun iyo 12 September 2022 goluhu wuxuu ka wada hadlay kuna heshiiyay qodobada soo socda. sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. goluhu wuxuu isla qaatay ka ciribtirka kooxaha qawaariijta dhammaan dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. goluhu wuxuu isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyad qaran ee la dagaalanka qawaariijta la iskuna dubarido dadaalada kala duwan. goluhu wuxuu isla qaatay dhaqangelinta heshiiska qaab dhismeedka amniga qaranka ee la saxeexay Abriil 2017. wixii farsamo ahna waxaa ka shaqeyn doona guddi farsamo. goluhu wuxuu dhiirigelinayaa dardargelinta qorshaha kala guurka ciidamada qaranka ay ka kala wareegayaan mas'uuliyadda amniga ciidamada midowga Afrika ADMIS si dhameystiran. gurmadka abaaraha iyo la tacaalidda saameynta isbedelka cimilada. goluhu wuxuu diiradda saaray saameynta abaaraha soo noqnoqonaya ee dalka ka jira iyo raadka ay ku reebayaan habnololeedka bulshada Soomaaliyeed. goluhu wuxuu hay'adaha gargaarka faraya dardargelinta gurmadka abaaraha. goluhu wuxuu sidoo kale isla qaatay baahida weyn ee loo qabo maareynta iyo la tacaalidda saameynta isbedelka cimilada iyo dhisidda kaabayaasha adkeysiga aafooyinka. 3 dardargelinta dib u eegista dastuurka. goluhu wuxuu isla qaatay in mudnaan gaar ah la siiyo
qodobada wadaxaajoodka siyaasadeed ee u baahan si loo dhammaystiro dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah. Goluhu wuxuu isku raacay in xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay soo dhammaystiraan xubnaha ka dhiman guddiyada u xilsaaran dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah. 4. Dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka. In dalka laga dhaqangeliyo nidaamka xisbiyada badan iyadoo dib loo milicsanayo xeerarka xisbiyada iyo doorashooyinka. In dalka oo dhan laga hirgeliyo doorashooyin xor ah oo hufan kuna salaysan codbixiyaal diiwaan gashan iyo xisbiyo u tartama golayaasha heerarka kala duwan. In dalka laga qabto 2 doorasho, mid heer federaal ah iyo mid dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka. 5. Jadwalka ay habraaca shaqo golaha wadatashiga qaran. Goluhu wuxuu isku raacay inuu samaysto habraac shaqo oo qeexaya hanaanka loo marayo heshiisyada, qaab dhismeedkiisa, howlaha golaha, qodobada wadaxaajoodyada iyo dhaqangelinta go'aamada golaha. Goluhu wuxuu isku raacay in 2 shir ee soo socda ay qabsoomaan December 2022 iyo Febraayo 2023. Halkaas ayuu inooga dhan yahay warmurtiyeedkeena. Mahadsanidin. ciidamada militariga Somaliland ayaa maanta la wareegay degmada Boocame ee gobolka Sool. Boocame ayaa ka mid ah deegaanada ay Puntland u qorshaysay inay ka qabato doorasho qof iyo cod ah sida qodoboreedkan uu ku eegayo Faysal Cabdi. wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa waxa ay ku soo waramayaan in saaka ciidamo ka tirsan kuwa militariga maamulka Somaliland ay si buuxda la wareegeen gacan ku haynta degmada Boocame ee gobolka Sool, halkaas oo markii hore gacanta ugu jirtay maamulka Puntland isla markaana ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa Puntland oo fariisimo halkaasi ku lahaa. wararka aanu ka helayno ayaa intaasi ku daraya in ciidamada maamulka Puntland ay banaanka uga baxeen degmada Boocame haatan ay gudaha u galeen ciidamada militariga Somaliland. degmada Boocame ee la wareegay isla markaana ay la wareegeen ciidamada Somaliland ayaa waxa ay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ay u jirtaa qiyaastii 75 kilomitir. degmada Boocame ayaa ka mid ah degmooyinka ay xukuumadda Puntland doonaysay inay ku qabato barnaamijka doorashada ee qof iyo cod oo si weyn kaga socda deegaanada maamulkaasi Puntland. wararka ayaana intaasi ku daraya in haatan ay xiisad aad u weyn ka aloolsan tahay maamulada Puntland iyo Somaliland, xiisadaas oo ka dhalatay ciidamada Somaliland ee saaka la wareegay degmada Boocame. maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa dhowr goor oo hore isku dagaalay maamulida deegaano ay ku muransan yihiin, kuwaas oo ay ka mid yihiin gobolada Sool iyo Sanaag. xiliyada ugu badan ee isqabqabsiga dhanka muranka ah uu yimaado ee maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa waxa ay markaasi yimaadaan waqtiyada ay doorashooyinku dhacayaan. dhawaan ayayna ahayd markii shaqaaqooyin ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Sool oo uu olole doorasho ka waday madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi. sidoo kale sanadkii 2018 ayay ahayd markii maamulada Puntland iyo Somaliland ay ku dagaalameen Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool. xiisada u dhaxaysa labada maamul ayaana mar kale dib u soo cusboonaanaysa iyadoona dagaalo xoogan oo qaraar oo khasaare fara badan dhaliyay ay maamulada Puntland iyo Somaliland horay uga dhaxdhaceen deegaano ka tirsan gobolada Sool iyo Sanaag. haatanna waxaa la tilmaamayaa in xiisadu ay ka aloolsan tahay gobolka Sool, gaar ahaan degmada Boocame, halkaas oo ciidamada Somaliland ay gudaha u galeen saaka isla markaana ciidamada Puntland ee halkaasi fariisimaha ku lahaa ay ka saareen. golaha wadatashiga qaran ayaa cambaariyay weerarkii qaraxyada ahaa ee loo qaaday isgoyska Soobe. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku hadlay afka golaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. waxaan rabaa halkan inaan marka koowaad ka bogaadiyo mas'uuliyiinta halkan joogta muxuu ahaay mas'uuliyadda Soomaaliya maanta iyo mas'uuliyadda deegaanada dalka Soomaaliya oo dhan ayay gacanta ku haya oo dadaalo aad iyo aad u badan deegaanadoodana ka muujiya haatanna ka wada. muhiimadda dowladda Soomaaliya ee la dagaalanka argagixisada iyo khawaarijta maanta dalka qaybaha kala duwan ay ka sugan yihiin dadaalkaasi waa ka socdaa, waana loo midaysan yahay, waana loo ballamay inaan loo kala harin sidii dalka nimankaas looga bixi lahaa gacantooda iyo meelaha ay joogaan dhibka dadka ay ku hayaana loo saari lahaa. nimankaasi isaga hadlimayna galabta wixii aan dhihi lahayn horay ayaan usoo dhahnay. dadka Soomaaliyeed iyo arxan darrada ay ku hayaan waan soo sheegnay. anoo ku hadlayo magaca golaha mar kale waxaan u tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkii muxuu ahaay ku geeriyooday 29kii bishan Oktoobar dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen
zoonaha Zobe iyo Safari Hotel agaarkiisa dadka meesha ku dhintay samri email Allah naga siiyo ayagana jannadii firdawsa Allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaana muxuu ahaa Ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad degdeg ah siiyo caalamka abeen weytu waa u baaqnay in kaalmana la soo gaaro waana la soo gaaray waana soo socotaa qaar waana soo gaareen sidoo kale dadka Soomaaliyeed inay isu gurmadaan bixinay tirada ugu badneed oo dad Soomaaliyeed ayaa dhiigna ku tabarucay isbitaalada deeqa fara badan muxuu ahaa la yimiday oo dadkii gaarsiiyay haddana wali way socotaa guddiga aan magacawnay ee gurmadka runtii waxay noo soo tabinayaan in maxaan ku raadayay dadka Soomaaliyeed dadaalkooda uu aad iyo aad u badan yahay sidaan u ballan qaadnay habeen dhaweeto ayaa naga dhaba Oktoobar kale oo sidaan oo kale dhib badan inaan soo marin ayaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiisa diyaaliira inta kadib dalkeenu marxaladu ka guuraya muddo uu ku soo jiray marxalad kale uu guuraya marxalad dhib iyo qahar iyo karaamo dil iyo caqiidadii iyo cibaadadii ummadda ay lahayd oo lagu cayaaro qarannimadii iyo ummaddan ummadnimadeedii oo maxaan ku raasuxun iyo suxun loola dhaqmo ayaan ka guuraynaa waxaan u guuraynaa gole ama meel barin nabad ah oo maxaan ku raadayay diinteennana aan u madax bannaano ku caabudano dadkeennana sharaftooda iyo karaamadooda aan ku ilaalino ayagoo isla jiro walaala oo gacmaha isaysto heshiisa caalamkana aan kula macaamilno wanaagaas aan gaarnay gobonnimadeenna afka qalaad sovereignty-ga lagu yiraahdo oo kaamil ah oo dhammaystirnayn ayaa waxayna ciidamada Amisom waa nala joogaan wax badan ay soo qabteen ilaahay idankiis waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ah mas'uuliyadda amniga dalkeena waan la wareegi doonaa asagoo dalkuna uu xor ka yahay muxuu ahaay khawaarijta iyo inta ku heer joogta shabaab oo goboladan dawlad goboleedyadan ku yaala muxuu ahaay gobolada dhexe iyo gobolada koonfureed maxaan ku dhib ku haya iyo sidoo kale shabaab iyo maxaan ku yiraahdaa Daesh oo Puntland ayagana muxuu ahaay meelo kamid oo yar yar maxaan ku harsan oo ku jira intaba waa loo taagan yahay caawiye maalin kuwaasna ka ogolaan mayna in ay buuraha Puntland saarnaadaan kuwaana ka ogolaan mayna inay dhulka Soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadii meeshii maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawano la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankaan ay ku habsadeen una diideen dadka in ay maxaan ku yiraahdaa tacbadaan ilaahay idankiis waa ka imaanayna Soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaa sidii dadka Soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaan ballantii aan qaadnay ee ahayday Soomaaliya heshiis ah ayaan ku taaganahay astaanteediina waad aragtaan aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha galabta halkan ila joogaahay niyadda san iyo wanaaga in Soomaaliya hore u socoto ah iyo isku tanaasulka iyo ra'yi wadaagga iyo tala kala qaadashada iyo go'aan qaadashada waa ku bogaadinayaa runtii aad iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa sidaas ayaana idadiilo cusub runtii Soomaaliya ah ayaan arkaa inay u soo socoto sidoo kale caalamka Soomaaliya inuu kaalmeeyo jecel inuu garab istaago jecel weligii soo garab istaagnaane waana u mahad celinaynaa waana booqanaynaa safarada aan tagaynaa dhammaan dan cayiman oo la garanayo oo Soomaaliya dantaas loo raadinayo ayaan muxuu ahay u soconaa ama aan markaas mid diyaar oo soo helna ha noqoto ama mid aan wadadeedii furno oo biri dambe hadii alla yiraahdo imaanaysa ha noqotee dalxiis uma baxno meelo kale ma aadno haddaan anigu safro iyo madaxdaani hadday safartaba nin walba fariin aan ka midaysanahay ayuu sidaa oo caalamka uu kula macaamilayo oo gaarsiinayana adduunyada sidaas daraadeed dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa kalsooni badan inay qabaan waa sheegnay meel dhexe oo lagu hakadoo la istaagaayo ma jirto shabaab iyo inta ka soo harto shabaab la diriraysaanahay kii af kula dirira kii suugaan kula dirira kii dhaqaala kula dirira oo ka joojiyay dhaqaalaha muxuu ahaay dawladda iyo ciidamada muxuu ahaay halgan ku jirana kaalmeeya kii maxaan ku yiraahdaa macluumaad iyo information oo shabaabka og yahay iyo shabaab kalkaaliyaha shabaabka kaliya ma dhibka waa shabaab kalkaaliyaha oo aan waxba ka duwanayn asagana mabda'a khawaarijta ay ku midaysan yihiin intaba dadka Soomaaliyeed waa ku celinaynaa dad ay yiraahdo maxaa saas u leedahay maxaa saas u tiri iyo maanta nin ajnabi oo saas yiraahdo warkiisa raacaysa maaha maanta xaaladda Soomaaliya aan ku sugannahay meel dhexe oo la istaago oo laga bataceeyo ma taalo Soomaaliya maanta waa shabaab
iyo nin shabaab ama gabar shabaab la diriraysa waay wax kale oo meesha yaalla ma laha yaan waqti looga dhumin yaan waqti laydinkaga dhuminin shacabka soomaaliyeed ee sharafta lahow yaan laydiin been guurin kuwa fulayga noqdana waxaan leeyahay ka soo noqda waxaan rabaa hadalkayga inaan kusoo gabagabeeyo tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan annaga inteenaan meesha taagan iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto wanaagsan kuwa horaan nahay tacaawanuu cala albiri waataqwa anna kuwa kalene waxay isku kaalmaysteen waa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan adiga inteed joogtaa marka labadaas kaamaa furane kaamka saddexaad ood joogi kartid waa xaggee kaam saddexaad oo meeshaas ka furan ma jiro walaalaha soomaaliyeed ee sharafta badan meel kastaa joogaan waa u mahad celinaa kuwa banaanka usoo istaagay muxuu ahay la dagaalanka al-shabaab ee xoogooda iyo xoolahooda iyo caqligooda ugu soo istaagay in badanana aayaadka muxuu ahay qur-aan kariimka ay ka hadleen kuwa usoo istaaga banaanka difaacidda dowladnimada difaacidda diinta difaacidda dadka intaasaan isku bahaysan intaa iskula jirna waa intaasina qof xumaan meel ka soo geli karta ama mid kamida inuu xun yahay noo sheegi karta ama nagu qanci kartahay ma jirto aad iyo aad ayaa umahadsantihiin guusha waa soo dhowdahay in yaraa noo dhiman adkaysigeenna inaan sii kordhinaa la rabaa aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay inay u argudi doonto dadkii lagu laayay qaraxi soobe ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay inay shacabka soomaaliyeed u midoobaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dil toogasho ku fulisay rag hore ugu eedeysnaa inay dilal iyo qarac ka geysteen magaalada Muqdisho. raggan ayaa maxkamadda ay ku xukuntay bishii December 2019 dil toogasho sida qodob-wareedka uu ku eegay Cabdirashiid Sandheere. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay oo Isniina fagaaraha dugsiga Iskool Buluusiya ee magaalada Muqdisho waxa ay xukunkii dil toogashada ku filisay saddex rag kuwaas oo lagu helay qaraxyo ay ku dileen dad shacab ah iyo mas'uuliyiin kale. raggan oo lagu kala magacaabi jiray Xasan Macalin Barre boy iyo abtigiisa Siid Cali Nuur Steam Boy iyo Isaaq Khayrow Aadan kuwaas oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ee xukun dil toogasho ay ku riday bishii December ee sanadkii 2019. Xasan Macalin Barre boy ayaa si gaar ah loogu helay inuu wada ka ahaa gaariga isqarxiyay oo suuqa xaafadda Kaabagoday ee degmada Wadajir kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 12 ruux tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen. halka Isaaq Khayrow Aadan lagu helay inuu qayb ka geystay dilal qorsheysan iyo weerar ka dhacay gobolada Shabeellada Hoose iyo gobolka Banaadir. Nuur Ibraahim Mahadal oo ka tirsan ciidamada gaarka ee booliiska balse sida maxkamaddu ay sheegtay laga saaray kadib markii uu lunsaday hub ay dawladda ay lahayd isla markaana uu intaas kadib ku biiray kooxda Al-Shabaab asiga oo ka dambeeyay qaraxii lagu dilay gudoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada Maxaas waxaana xukun dil toogasho lagu riday 3 bishii October ee sanadkii 2019. xeerlaal ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo warbaahinta u sheegay saddexdan xubnood iyo waxyaabaha loo kala heesto ayaa warbaahinta kala hadlay xukunka iyo sida uu dhacay. isla markaasna uu gaari ay ka buuxaan walxaha qarxa geeyay suuqa Kaabagoday ee degmada Wadajir kadibna uu ku qarxiyay dadkii shacabka ahaa ee ka adeeganayay suuqa. taariikhdu markay ahayd 26 bishii 11 2018 qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen in ka badan 12 ruux isla markaasna bam gacmeed uu ku tuuray laanta suuq bacaad ay sababtay dhimashada marxuum Lawa Alif Labool Faarax Cabdulla Cariif xamiinaha geeyay degmada Maxaas oo ku qarxiyay marxuum Rashiid Cismaan Cabdi oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas. taariikhdu markay ahayd 19 bishii 4 2019 maanta way taariikhdu tahay 31 bishii 10 2022 waxa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq. toddobaadkii hore ayay ahayd markii sidaan oo kale fagaaraha dugsiga tababarka Iskool Buluusiya ee magaalada Muqdisho lagu toogtay rag ka tirsan Al-Shabaab iyo Daacish. mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda ayaa gaaray masaajidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in masaajid Cali Guduud ay si toos ah gacanta ugu hayaan ciidanka dawladda. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Mayre Makaraan ayaa gaaray deegaanka masaajid Cali Guduud oo halbool u ah kooxda Al-Shabaab balse shalay laga saaray. socdaalku waxa ku heliyay gudoomiyaha taliyaha guutada 16aad iyo commandoska Gorgor Jarraa Gacmo Duule Sareegas Cabdullaahi Macalin Nuur Korneel Mukhtar Alaalax oo kamid ah saraakiisha ciidamada daraawiishta Shabeelle gudoomiyaha degmada Raagaceli iyo mas'uuliyiin kale. gudoomiyaha ayaa socdaal ku samaray wadooyinka dhexmara deegaanka masaajidka Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gudoomiyaha ayaa sheegay in gacan ku haynta deegaanka ay ku soo laabatay gacanta dawladda isla markaana shacabku looga baahan yahay inay dib ugu soo laabtaan deegaanka lana shaqeeyaan ciidamada ammaanka. sidoo kale gudoomiyaha ayaa xusay inuu dhamaad waqtigii Al-Shabaab dibana lagu xiro doono deegaanada kale ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. guud ahaan waxaan intaas ku soo gabagabaynaynaa warkeena habeenimo. warka waxaa idin akhrinaya anigoo Abshir Xuseen Maxamed Abshir Baari ah tan iyo warkaan warkiisa kale inta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.